بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal daawadayaal meel walba adduunka joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkeeni aqoon maal. barnaamijka aqoon maal waxaan mar walba uga hadalnaa qadar daqiiqada ah kelmad aan isdhehayno waxay kuu kordhinaysaa, waxay kor u qaadaysaa maskaxdaada, waxay kuu kordhinaysaa aqoon iyo cilmi, waxay ku siinaysaa maskax ballaaran oo meel fog aad ka fakartid in aad heshid. maanta insha allahu tacaala waxaan jeclaa inaan la wadaago saddex mabaadi ama saddex principles waxay dhahaan, ama saddex yani waxa waa mabda oo loo baahan yahay inaad ku noolaato. saddexdaas mabda markaa fiirisid oo saddex mabda yani waxa weye diinteena asaas u ah. marka casharkeena maanta waa saa u jeedaan meeshan waxaa ku qoran, haddaad si fiican u fiirisid, 3 principles to live by. saddex mabaadi ama saddex mabda asaas, saddex tiir oo loo baahan yahay inaad ku noolaatid ama qofka bini aadanka inuu ku noolaado. kan koowaad waxaa waaye efforts, dadaal ba lagaga baahan yahay. haddii aad tahay qof muslima, hadduu maalin walba soo kacaya oo shaqaysanaya oo yani waxa waaye u soo kacay in yani goolkaaga uu noqdo ilaahi subxaana wa tacaala inaad caabudid, dartiisa aad u noolaatid, raalli ahaanshihiisa aad raadisid, dadaal ba lagaga baahan yahay. 24 hours baa haysataa, 24 saac aad haysatid, waxaad kala mid tahay qof walba oo adduunka ku nool ayaad kala siman tahay. 24 saac ayaa waxay ku yihiin asadkaagii ama raasamaalkaagiga ku ah. waxaad ku samaysatid iyo waxaad ka samaysatid baad leedahay, dhaxalkaas adiga leh. soo qodobka koowaad ama mabda'a koowaad ama principle kood waxaa weeye dadaal in aad la imaatid. waxaad mar walba ku dadaashaa wixii adiga yani waxa waaye ku anfacaya in aad ku dadaashid. dadaal dhinac walba, haddii ahaan lahayd in aad yani waxa weeye aqoon iyo cilmi yeelatid, haddii ahaan lahayd in magaranaysaa horumar kale oo nafsadaada ku saabsan inaad samaysatid, haddii aad ahaan lahayd inaad ganacsi dhaqaale aad samaysatid, haddii aad noqon lahayd saaxiibo wanaagsan inaad samaysatid, haddii aad noqon lahayd waxaa weeye mashruucyo projectyaal inaad ka qayb qaadatid, wixii adiga ku anfacaya adduun iyo aakhiro yani waxaa waaye oo mabda asaas ku ah in aad ku dadaashid yani waxaa weye adduunka iyo aakhiradaada wixii ku anfacaya. waa mabda'a koowaad, effort inaad la imaatid. talabaad waxaa waaye aaminid, trust ilaahi subxaana wa tacaala, inaad aamintid in natiijadaas waxa ka soo baxaya ee wax wanaagsan ay yihiin. dadku badanaa waxaa waaye waxay xooga saaraan go-aanka markaa ay qaadanayaan. go-aanka as long as go-aan fiican uu yahay, waxaa loo baahan ilaahay inaad talada saaratid. yani ilaahay markaad talada saartid subxaana wa tacaala, go-aankii xataa aad isdhehaysay markii hore waa ku qaldamaysaa, dan go-aan fiican ayuu noqonaya. marka go-aanka waa sida aad ula falgashid. wax adduunka complete ah 100% yaala ma jiro, wax walba nuqsaan ayaa ku jirta, laakiin waa sida mar walba aad ula falgashid. reactionka ayaa wuxuu sameeyaa differencega ama mataqaanaa farqiga u dhexeeya, macnaha isagaa sameynaya, isaga ama guusha ku gaarsiinaya ama isaga waxa waa guuldarada ku gaarsiinaya. marka waa inaad trust la imaatid ilaahi subxaana wa tacaala qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo processka isaga inaad u dhaaftida loogu baahan yahay. adiga waxa lagaa baahan yahay inaad la timaadid dadaal. qodobkaas ama mabda'aas ama principlekaas waa kii labaad u ah. kan saddexaad waxaa waaye never regret, ha shallayto weliga ha gelin. wax walba adduunka aad garanaysaa, talaabo walba aad qaadid ama waa cashar ayay kuu noqonaysaa oo beri ka maalin si haddii kuu soo laabato waa taqaana si looga bixi lahaa, ama guul ayay kuu tahay markaas. marka never regret, mar walba ha ka shallaayin. waxbaad baranaysaa, khibrad baad yeelanaysaa, xirfad baad baranaysaa. marka saddexdaas tiir ama saddexdaas mabaadi waa mabaadida lagaa baahan inaad ku noolaatid. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, waxaad ku dadaashaa waxa adiga ku anfacaya, xooga saar, dadaal la imow. yani waxa adiga adduun iyo aakhiro kuu fiican 100% dadaal ah la imow, waxba ha yaraysan adiga.
natiijada kasoo baxayso waxba laguma dirsan, laakiin waxaa lagu dirsaday processka xoog inaad saartid, productiga ilaahay subxaana wa tacaala inaad u dhaaftid ayaa muhiima. laakiin ixris calaa maa yanfacuka. marka waxaa ku xiga xadiidkaas haddaa fiirsid, wastacin billaah, trust la imow, ilaahay subxaana wa tacaala tala saaro, ilaahay subxaana wa tacaala caawitaan weydiiso, ilaahay caawitaan ma garanaysaa mar walba ka dalbo si aad u heshid ujeedkaaga. trustiga waa muhiim waaye, waxaan adiga gacantaada iyo xoogaaga iyo ma garanaysaa xeeladaada kuma jiraan, laakiin waxaa looga baahan yahay inaad dadaalkeeda la imaatid keliya, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhaaftid. wastacin billaahi walaa tacjas, mataqaanaa inaadan ma garanaysaa aadan caajisin ayaa lagaga baahan yahay. haddii ay wax kugu dhacaan markaa hadhihin mataqaanaa kada wa kada haddii aan sameyn lahaa, haddii ay hawl kula soo diristo, haddii setback uu ku yimaado, haddii failure uu ku yimaado, waa saan kuu sheegay cashar ayay ku tahay. walaa taqul law facaltu kada wa kada ayuu leeyay nabiga sal alla alay slam, hadhihin haddii aan sameyn lahaa kada wa kada sidaas iyo sidaas, sababtoo ah kelmadda low waxay furtaa albaabka camalka shaydaanka ayay furtaa, ama albaabka shaydaanka ayay furtaa. marka waxaa loo baahan yahay saddexdaas mabaadi ee diinteena oo sheegtay inaad ku noolaatid. waa saddex mabda oo anigu aad aan u arkay marka lagu dhaqmo faa'iido badan, waxtar badan, anfac badan inay ka imaanayaan. kow waa inaad dadaal la imaatid, aan kala har lahayn, adigoo resource walba isticmaalaya, albaab walba garaacaya, qof walba oo aad ka helaysid dadaalkaaga la hadlaaya. tan labaad inaad trust la imaatid, ilaahay subxaana wa tacaala aad tala saaratid, caawitaan weydiisatid. tan saddexaad inaadan shallaayin, shallaaytadana aad iska ilaalisid. 3 principles to live by, saddex mabda oo lagaa baahan inaad ku noolaatid. casharkeenii aqoon maal maanta insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. wax yar uu yaro dheeryahay, dulqaata, laakiin waa cashar wax badan isleeya waa ka faa'iidi doontaan. saaxiibadeen isgaarsiiye, dadkaa taqaanaan isgaarsiiye, dadka walaalihiina isku gaarsiiye insha allah. intaan casharkiisa ka arki doono waxaan kaga tagay sida salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.